maxaabiistan oo tir ahaan gaaraysa 74 maxbuus ayaa laga soo dajiyay garoonka magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde waxaana laga soo daayay xabsiyada ku yaala dalka Hindiya halkaas ay ku xirnaayeen muddo waxaana garoon ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin oo kamid yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiiro xildhibaano iyo xeelaliyaha qaranka safiirka dalka Hindiya oo fadhiya Soomaaliya Abiyan Maxamed Faarax oo ka hadashay meesha ayaa sheegtay inay ku guuleysteen inay la soo wareegaan maxaabiistani doorka ay ka qaateen golaha shacabka baarlamaanka oo ah kuwii ansixiyay heshiiskii India iyo Soomaaliya 14 Oktoobar 2017 marka heshiiskaas la'aantiisna wax badan nooma kala socdeen heshiiskaasna waxaa noo saxiixay oo asagana aan maaragtay halkan uga mahad celinayaa wasiirka hore arrimaha dibadda mudane Yuusuf Garaad oo ma saxiixay sanadkii 2017kii bishii Agoosto kowdeedii ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa u mahad celiyay dhammaan inta ka qayb qaadatay soo deynta maxaabiistani isagoo sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay mar walba ka go'an tahay in dib ay u soo celiso maxaabiista ku xiran daafaha caalamka caadilka ku amaanta soo dhaweyntan aan ka wada qayb qaadanay safiirka Hindiya xerraaliyaha guud ee qaranka bahda saxaafadda dhamaantii waa salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu soo dhaweyno 76 maxbuus oo kamid ah qaybtii ugu dambeysay ee ah maxaabiistii Hindiya ee nagaga xidhnayd oo 120 ku sinaa saddex kamidna Allah u naxariistay ay dhinteen tan iyo intii xukuumadda nabad iyo nolol la dhisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu nagu amray in aanu fulino amarkiisii ahaa in loo gurmado shacabweynaha Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku tabaalaysan maxaabiista ku ah meelaha qaarna loogu haysto magafayaashu sida Liibiya oo dhawaanaynu qayb kamid ah ku guuleysanay inaynu soo guriyo celino waxaan xasuustaa tan iyo intii xukuumadda la dhisay dadaalkii dheeraa ayaan u galnay maxaabiista Hindiya oo ka horna xerlaaliyaha guud uu ka shaqeeyay intii xukuumadda la dhisayna aanu dardargelin cusub gelinay hadday tahay heshiiskii isweydaarsiga maxaabiista Axmed Suleymaan Honkebel TV Muqdisho